inkastoo la dayactiray dhismayaasha ku teedsan laamiga isgoyska 14 Oktoobar Ekisoobe oo ay ka dhacday musiibadii 14 Oktoobar 2017 haddana mashaqadaasi waa mid aan wali ka go'in qalbiyada dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Muqdisho sabti bay ahayd maalintaas maalin naxdin badan bay ahayd saac daqiiqada ka hor markaan halka ka dhaqaaqay waa halka aan baska ka fuulo qaraxa Soobe dhibaato badan ayuu noo geystay Soomaaliya oo haddana waxa Ilaahay ka baryaa inuu qaraxaas lamid inuu Ilaahay noo geeyo aan dib u milicsano ka hor musiibadii ku habsatay isgoyska Soobe sidoo ahaa wuxuu ahaa mid ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan caasimadda waxa ku kulma wadada ka timaada isgoyska kilometer 4 ama number 4 ee soo hormarta xarunta dambi baarista ee CID laamiga ka yimaada isgoyska danwadaagaha ee soo dhaxmara xaafadda Buuluxubey iyo wadada ka timaada isgoyska X control afgooye ee soo marta isgoyska Banaadir Soobe waa halka ay ku kulmaan wadooyinkaas iyo jidadka yaryar ee dhinaca waqooyi ee laamiga kaga soo dhaca bosteejo ayuu gaadiidka noocyadiisa kala duwan u yahay isgoyska Soobe laamigaas hareerihiisa waxa ku yaala maqaayado xarumo ganacsi oo kala duwan hoteelo goobo caafimaad kuwa waxbarasho iyo shirkado dhamaantoodna waa kuwa aad u mashquul badan dhamaan dadkii ku sugnaa Soobe ma qabin wax walwal ah oo nolol maalmeedkoodii caadiga ahaa ayay iska wateen ugumana duwaneyn maalmahoodii hore marka loo eego xaaladda ay ku sugnaayeen waana ka baraadla yihiin dabinka lala maagan yahay galabkaas dhinaca wadada ka timaada isgoyska X control afgooye waxa ka soo socda gaari TM ah oo xambaarsan qarax tankiisu culus yahay oo loogu talagalay in adduunka looga qariyo boqolaal dad ah oo aan waxba galabsan gaarigaas TM-ka ah ee xamuulka looga dhigay qaraxa weyn iyo ninka wadaba waxa ay u ooman yihiin daadinta dhiig shacab isu diyaarinaya tukashada salaada casir oo daqiiqado kooban ay ka dhiman yihiin baro ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda ayuu uga soo gudbay qaab damiin ah balse bar control oo ku taala Saybiano ayaa aad looga shakiyay gaariga iyo ninka wada ugu dambeynna xooga gaariga iyo xawaare sare ayuu ku soo dhaafay ciidamadii halkaas taagnaa rasaas ay ku rideenna gaariga ma aysan joojin dhowr daqiiqo gudahood waxa uu xawaarihii ku soo gaaray isgoyska Soobe laakiin maxaa dhacay wax walba oo halkaas ka jiray si aan la filayn ayay isu bedeleen oo aan la qiyaasi karin xitaa qofna kuma fikirin in sidaas ay wax u dhici doonaan Muqdisho oo dhan dhulka ayaa la dhaqaaqay oo gariiray awoodda iyo miisaanka uu lahaa qaraxaasi musiibada ahaa ee 14 Oktoobar 2017 dhacay mar kaliya waxa rogmay dhaqdhaqaaqii muuqaalkii iyo noloshii Soobe ka jirtay oo dhan goobtaas waxa ku dhintay ku dhawaad 1,000 ruux oo aan jeclayn in ay nala joogaan qaarkood ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lama helin waxaase loo diiwaan geliyay in ay macsalaameeyeen dunida oo ay dhinteen waxa dhaawacmay tira intaas ka badan oo sariirihii isbitaalada intay ka buuxsameen lagu dabiibayay barxadaha goobaha caafimaadka sababtoo ah waxa burburka hoostiisa marba marka ka dambaysa laga soo saarayay dad hor leh oo dhaawacyo qaba isla galabkaas waxa ka dhacay isgoyska danwadaagaha qarax kale oo saarnaa gaari nooha ah inkastoo qofkii waday ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ninkii noohada inteena qarxin ka hor gacanta lagu dhigo oo magaciisa la yiraahdo Xasan Aadan Isaaq waa qaabilsanaha fulinta howlgalka gobolka Banaadir waana isku xirihii weerarka 14 bisha Oktoobar ka dhacday isgoyska Soobe sidoo kale Xasan waa darabarkii lagu qabtay gaariga noohada waxa galabkaasi uu gabalka u dumay waalid badan oo u soo xoogsi tagay caruur isugu jirtay agoon iyo rajo maalin madow ayay u noqotay waalid badan oo waayay ubadkii ay ku soo tiir iyo tacab beeleen duruufo adagna ay wax ku soo bareen Salaad Maxamed Uways Maxamed Deeq Nabco
الله الرحمة aniga awal bashan iyo 10 caruur ahaan dhalay halkaas hal gabar ay joogtay ifka ii joogta ilaahay u joogta ilmaheeda wiilkaana wiilow iiga tagay alxamdulillah maxamed axmed la yiraahdaa waa 10 jir waa asigana wuxuu ahaa 27 jir hooyadiisna waa noosha wiilka waxaa banaanka u soo baxay dadkii Muqdisho oo dhan intii awooday in ay dhaqaaqaan oo uu hogaaminayay gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqii Muqdisho ee xilligaas Taabid Cabdi Maxamed dib intaas la eg ama masiibo inta la eg markay dadka gaartana cadaaladu qofka filan kara waa afar nooc midda ugu horeysa waxay tahay in dambiilihii la soo qabto oo sharciga la marsiiyo midda labaad waxay tahay in dawladda ay magdhow ka bixiso mas'uuliyaddan ay cid qaadato midda saddexaad waxay tahay in daryeel joogto ay helaan dadkii waxyeelada ka soo gaaray ee ku agoontoobay rajo ku noqday ku maalbeelay amaba ku naafoobay midda afraad oo qofka cadaaladda uu filan karana waxa ay tahay in la abuuro jawi nabdoon xasilan oo lagu damaanad qaadi karo in dib intaan la eg uusan mar kale dhici karin waxaa midoobay qulubta shacabka iyo ciidamada oo si dhow u wada shaqaynayay iska badaa dadkii Soomaaliyeed waxaa la ilmeeyay dhagartaasi weyn ajaanibtii iyo dadkii aan islaamka ahayn ee maqlay ama daawaday baaxadda uu la ekaa gumaadkii Soobe ka dhacay galabkii Sabtida 14 Oktoobar 2017 waxay sareer socday gurmadyo kala duwan oo gudaha iyo dibadda ah qaarkood waxaa lagu baadigoobayay dadkii maqnaa halka gurmadkii ugu xooga badnaa uu ahaa midkii dhiigga loogu deeqayay dadkii dhaawaca ahaa waxaa waday gurmadyadaasi shacabka ciidamada iyo madaxdii xilligaas waayo nooc kasta oo dhiigga qofka fiyow laga heli karay wuxuu ahaa mid loo baahnaa si loogu badbaadiyo walaalaha isbitaalada ku jira ee qaba dhaawacyada kala duwan dadkii xaaladooda caafimaad gudaha wax looga qaban waayay waxa loo qaaday dibadda intooda badan waxa la geeyay Turkiga oo garab istaag walaalnimo muujiyay ehel waalid walaalo iyo saaxiibo badan ayaa baadigoob ugu jiray in ay helaan nolol iyo geeri dadkii ay jeclaayeen oo la tuhunsanaa in musiibadii 14 Oktoobar ay ku habsatay dadkaasi qaarkood waxa la helay iyaga oo caafimaad qaba laakiin maskax ahaan aan miir qabin xilligaas qaar badan waxaa laga soo saaray burburka hoostiisa iyagoo isugu jira dhaawacyo iyo meydad waxaa jira dad badan oo ka bogsaday dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxa balse ilaa iyo hadda saameyn xoogan uu ku reebay maskaxdooda laakiin midda ugu daran waxay tahay qoysaska qaar in aysan weli helin dadkoodii balse ay ka sabreen baadigoob dheer kadib iyagoo dhimasho ku xisaabay inta hore dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahayd iska imaado oo meel iska jira laga yaabaayo maxay ahayd qaraxii oo dad cararayo waashaa la sheegay dadka carare muu ku jira xabsi muu ku jira mar xabsiyada xitaa waan ka raadinay marka waan isdhahay laakiin hadeer waxaan u maleynaa dirsiga nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay qaraxaasi dawladda waxay ku eedeysay in ay ka dambeeyeen mas'uuliyadiisa al-shabaabna ma aysan iska fogeyn eedeynta dawladda mana aysan sheegan mas'uuliyadda weerarka Muqdisho iyo dadkeeda waxaa soo maray maalmo mashquul iyo mugdi badan alla si kuma soo celiya mar kale midowgii bulsho ee 2017 dawladda ugama aysan faa'iideysan si wanaagsan iyo xiriir dhow oo ay la yeelato shacabkeeda jawaabtii dadka ay uga fadhiyeenna in ay ka bixiso weerarkaasi lagama helin dhinaca dawladda ma dhicin isla xisaabtan amni oo dawladda dhexdeeda ah marka laga reebo in dhowr qof loo soo qabtay kulug lahaanshiyaha mashaqadii 14 Oktoobar 2017 dawladda shacabka lama aysan wadaagin natiijada ka soo baxday baarista eedeysanayaashii ay gacanta ku haysay su'aalihii shacabka ka imaanayay ee dhinaca amniga la xiriiray dawladda waxay jawaab uga dhigtay dhagaxaan jidgooyo ah iyo kala wareeg ay ku saftay inta badan isgoosyada Muqdisho iyo jidcadayaasha xaafadaha ka yimaada ee laamiyada ku soo dhaca arrinkaasi waxay shacabka ka dhaxleen culaysyo hor leh oo sababay in hooyooyin ay dariiqyada ku umulaan meydadkana garbaha lagu qaado iyo dadka nugul maadaama ay dawladdu ka xirtay jidadkii ay gawaarida u soo mari lahaayeen weli xusuusta dadka kama aysan goyn musiibadii dhacday 14 Oktoobar 2017 والله maalintii Soobe
dhibaato aad u fara badan ayaa ka dhacday dad badan oo Soomaaliya ayaa ku baaba'ay dad aan aqaan ayaa ku jiray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah inta lama taala naxariisto inta noolna Allah caafiyan leeyahay ilaa hadda day xanuunsan Allah caafiyo Allah bogsiyo ayaa leeyahay waa maalin xasuus mudan oo Soomaaliya aad ay u xasuusato oo ilaa hadda laga sheekeeyo maalin walbana waa laga sheekeeyaa waqti walbana waa laga sheekeeyaa waxa aan xasuustaa maalintaas sabti bay ahayd maalintaas maalin naxdin badan bay ahayd saac daqiiqada ka hor markaan halkan ka dhaqaaqay waa halka aan baska ka fuulo baska ayaan ka fuulaa shaqadayda aan ka adeegtaa daqiiqada ka hor waxaa ka dhacday halkan masiibo rabbaaniya waxay ku habsatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka xasuustaa gabadh ka shaqaynaysay wasaaradda qorsheynta oo Maryan la yiraahdo ayaan aad u sii xasuustaa oo wada shaqaynayno oo dhismaha wasaaradda qorsheynta ku jirtay maalinta maalin la yaab leh ay ahayd maalin kasta markaan halka bas ka raacayna waan xasuustaa ma iloobo taariikh naxdin leh bay ahayd ummad Soomaaliyeed oo iyagoo waxba galabsan lagu baabiyay xamar dhaxal uma helin geeri joogtay oo dhagar xamar dhaxal uma helin geeri joogtay oo dhagar xamar dhaxal xamar uma helin habba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhaqdhaqaaqii ka jiray isgoyska 14 Oktoobar ee Kisoobe hadda waa mid sidii caadiga ahaa ku soo noqday dhismayaashii iyo ganacsiyadii sidooda ayay ku soo laabteen bartanka isgoyska ayaa laga qotomiyay taalo lagu xardhay 14 Oktoobar si loogu xusuusto halaagii dhacay 2017 Oktoobar galab sabti ah dadkayga iyo dalkayga waxaan u rajaynayaa in aan dhawaan ka baxno dhibaatooyinka nala haray oo aan si dhaqso ah uga soo kabanno maqaamkii dunida aan ku lahayna aan soo ceshano insha Allah nabaddalatay bayman dooliyo kubaacuran insha Allah haddaba markii aad maqasho 14 Oktoobar iyo Soobe adiga maxaa maskaxdaada aan ka go'in ilaa iyo hadda oo aad xusuusanaysaa